iyadoo ay si wada jira ugu qabteen xarunta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Sacad Saajin iyo gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa waxa ay ka hadleen shidaal xun oo soo galay Soomaaliland isla markaana waxay sheegeen inay ka xun yihiin dadka uu soo gaaray khasaarahaas ee gaadiidkaasi watay waxaanay guddi u saareen uu gudoomiye ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland inay soo baaraan shidaalkaasi halka uu ka yimi waa kuwan iyagoo arrimahan ka hadlaya waan ognahay inta dhowba in walaac badan ka jiro wadanka oo la xiriira shidaal tayadiisu hagaagsaneyn oo soo galay oo dhibaato badan u geystay gaadiidleyda arrintaa waa laga wada xiyay howlgal badan oo ka sameeyay qoraalada oo ka sameeyay aan tusi doono ibikaran waxaan u baqacawnay guddi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee ganacsigu oo kormeer ku tagi doona barbara iyo meelaha wax ka dhacaybaba warbixin hufana ka soo diyaarin doona sida wax u dhacay iyo sida wadcigu hadiya guddidaas muddo yar oo kooban ayaanu doonaynaa inay soo xaqiijiyaan soona baaraan shidaalkan halku ka yimid sidoo ku soo galay maaragtay iyo wixii laga qaban karo baaristaasi markay soo dhamaato hadii Ilaahay ka dhigo annaga oo wada shaqeynayna xukuumad ahaan iyo hay'ad ahaan waxaanu ka qaadaynaa tallaabooyin adag si shidaalkaas iyo shidaalada inoo soo galaaba aanay tayadeedu ugu hooseynta caalamiga ah loogu talagalay عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في أرجيسة